بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم دروستeenii ayaan halkii sii wadaynaa fahamka islaamka maanta waxaan dhigaynaa axkaam shariica shariicadu sida ay u kala saartay xukunka shaygaas ma xaraamba ma waajiba ma nadbiba ma mubaax ma makruuhba marka shan qaybood waa loo kala saaraa axkaam shariica al-khamsa shaygu inuu waajib yahay waxaasay waajib yihiin wax la iska raba yihiin qofka hadduu sameeyana laga abaalmarinay hadduu ka tagaan lagu ciqaabayo farna waa la yihahdaa waajibka inkasta waxay kala duwan yihiin waxaa la yihahdaa fardun waaya waxaa ka mid salaadihii faralka ahaa sekadii baa ka mid a wix kasta oo la is amray oo waajiba ayaa ka mid ah waayo waxaa ku xiga nadbun shaygaas waa sunne sunne waxa weeyaan qofka hadduu iskaga tago lagu ciqaabi maayo hadduu la yimaadona waa lagu hadduu la yimaadona lagu abaalmarinaya marka sunna la yihahda sunnahuna laba macnuu leeyahay haddii sunnaha nebiga la yidhaahdo waxa weeye dariiqii nebiga weeyaan waajib baa soo geli karaa wax kalaa soo geli kara wax loo soo geli karaa laakiin nadbigu waa sunnaha caadiga ah misal salaadii sunna ahaa iyo sadaqadii sunna ahayd iyo waxaasoo dhan nadbi baa la yihahdaa waa wixii haddaad samayso lagu abaalmarinay haddaad ka tagtana lagu ciqaabay waay mubaax baa yihi mubaax wixii haddaad samayso aan lagu ciqaabayn haddaad ka tagtana aan lagu ciqaabayn haddaad samayso lagu abaalmarinayn haddaad yani uu mubaax wey ama jaa-is waa wax iska bannaan haddaan iska seexdo iyo haddaan iska socsocdo haddaan koob shaha cabiyo haddii kale haddaan magaalada ka carraabo iyo haddaan u hoydo waa mubaax baa lahaa ashyaadana asalkooda waa mubaax wixii sharcigu xaaraantinimeeyey ama waajib ka dhiga mooye waaya waxaa ku xiga makruuh waa la yahdo makruuh waa maxay makruuh waxaa weeye wixii qofku hadduu sameeyo aan lagu ciqaabin hadduu iskaga tagana ajar lagu siinayo maxaa ka mid a waxaa ka mid ah qofka hadduu toon cuno toon iyo basal iyo waxa aynu masaajidka inaanu tegin waa nahyi soo maaha laakiin hadduu masaajidka iska tago lagu ciqaabi maayo marka waxa weye waxa ay fiican tahay inaad kaga tagtid weyi laakiin haddaad samayso aan lagu ciqaabin makruuh ba lahaa oo yani xaaraamtii maaha waayo waxa timi shaygaas waa xaaraam haddii lagu yahdo حرام محظور نوع يعني محظور marka waxa weeye wixii hadduu qofku sameeyo lagu ciqaabayo محظور baa wixii hadduu qofku sameeyo lagu ciqaabayo hadduu ka tagana lagu abaalmarinayo baa la yihahdaa ما يعاقب على فعله ويثاب على تركه واي shantaa bay u kala baxaan marka iyadoo laga soo dheganaya qur-aankii iyo sunnihii ayaa waxa weeyaan shantaasaa loo kala saaray axkaam shariica waxaasi ma waajiba ma sunna oo sunnihii dariiqaan rahays dariiqa rasuulka haddii sunnaha nabiga la yahdo dee waajibkaa soo geliya wax loo soo gelaya laba nin bir isku haystaan arka ma sunnihii nabigaad leedahay waa laga tegi karaa marka fahamka in la fahmo weeye sunnaha labada sunna macnahooda sunnihii salaadaha iyo sunnihii iyo sadaqadaha iyo sunni waxyaababa iska sunnaa baa jirate oo qofka ajar ku helayo laakiin hadduu kaga tago aan lagu ciqaabin loo qabsanayn way halkaas baynu u daynaynaa sidaas ha loo fahmo waajib waxay noo wixii la iska rabo haddii laga tago la isku ciqaabayo haddii la sameeyana la isku abaalmariyo nadbi waa wixii recommended weeyaanoo waa wax la jecel yahay ama la sunneeyey oo qofka hadduu la yimaado ajar ku helayo hadduu kaga tago laakiin aan lagu ciqaabin mubaax iyadu waa iska free weeyaan qofku hadduu sameeyo iyo haddaanu sameynayo hadduu waa iska mubaax makruuh waa wixii la nacay qofku hadduu sameeyana aan lagu ciqaabin hadduu ka tagana ajar lagu helayo taasi iska soo horjeeda nadbiga iyo makruuh iska soo horjeedaan midna haddaad samayso ajar baad ku helaysa haddaad ka tagtana lagu qabsan maayo midna haddaad ka tagtaa ajar ku helaysaa haddaad samayso lagu qabsan maayo waa iyo maxduur oo ah wixii xaaraanta ahaa haddaad samayso lagu ciqaabayo haddaad ka tagtana lagu abaalmarinayo
halkaas baynu u daynaynaa markaa sii sheergareeya dadka kalena sii gaarsiiya addaala cala khayrka faacilihi iyo nabiga sal alla alay slam qofku wax khayra sameeyaa dadka tusaa isaguna ajar laag baa intii loo soo qoraya iyadoo kii kale laga nusqaaminayn casharadaas lambaraha ku qorna whatsapp weeyaan qofkii u baahan higaada qur-aanka oo degdega dad badan kaa filxeen bugaag pdf free ma siinaynaa halkaa nagala soo xidhiira insha allahu tacaala wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu